إن جاهل له أن أقوم لهن أو شرعي وحوية إلهي وجهي وأرتي أورنا إمارات كان لصو شكي سنة إمارات كان العدو السومالي وسكعتها أنا سيب بدأت فين أنا يدي الشيء أنا أدأ مدحوينها أنا كل تير كان صار الله هل كورة كبرتك خائن الوطن سيتا your own state وطن عدو وهو وطن كاذا ربع إنه تكذا هو ذاك عطى كل جو أو كم يستو أياد أرتي ساعة ولاد هاي وحرير بالله صغيرة ناي هذا صعطة أنت هذا صعطة كأنك صعطة الرمانك السؤال جدي الشرعي أنت حتى أرجع شيء أورميه قصب ويان إن لقطته أو قلاشة وزارة التعليم الدولة حفيز كما تحتويه هذا بسيبل سابل شغالين تكنوين شغالها نرغو أو قلادة نكدور فيه أنك هل من أو سيبل سابنت أو تكنوكرات أو كبه كروتة كمجرى أصغر على السينين siyaasi Faarax Macalin waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya guulo ay ka gaartay dhanka horumarka ciidanka iyo waliba sidoo kale soo noolayntii qabka Soomaaliga ixtiraamka siyaasadda arrimaha dibadda isagoo sheegay taasi inay ku fashilmeen madaxdii dawladihii qaarkood ku meel geerka ay ahaayeen ee madaxweyne Allah u naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Axmed madaxweyne Shariif Sheekh Axmed iyo madaxweynihii dawladii caadiga ahayd ee Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in dawladdaani dhankaasi ay guulo ka gaartay kuwan hadda waxay kaga duwan yihiin oo isku ognahay oo hadda inoo muuqata ilaa ay haatan hadooyana kuma aragno oo qaranki maaragtay hantidii dadweynaha oo lagu duunayna ma aragno isbedelna waan aragnaa ciidanka baa dhismahaya wadankii baa kor u soo socdaa sharaftii dibadda wadamihii goboladii meelihii la iibsaday dekedihii wax kasta oo dhanba oo dad ajnabi u qaatay ay daba socdaan wax badan oo ku jeclaan ayaa hadda iga muuqata waxaan isleenahay aan garab siina annagana aan garab soconno ilaa guusha rasmiga la gaaro waxaanan ka ahayn danta ummadda Soomaaliyeed oo annaga nawaladeynaysa ma jirto iyagoo dhan laakiin inta aan rajada ka qabno danta ummadda Soomaaliyeed garabna oo noqonayna waan garab istaagayna ummadana oo sheegayna waxaan leenahay war kuwan xoogaa lagu jeclaado oo kuwii kale kaga duwan yihiin baa jiray bal hore aan u wadno insha Allah ilaahay inuu guusha uu iyadoo kaamilan oo dhameystiran aan ku helno Faarax Macalin ayaa ugu dambeyntii waxa uu sheegay in Soomaaliya xilligan rajo fiican ay leedahay isagoo sheegay in isqabqabsiga siyaasiga ay dawladda dhexdeeda wadamo Soomaaliya ka waaweyn aba ka horumarsan xilligan uu ka dhaco wadan kasta hadduu hataa uu noqdo sidii Mareykanka oo kale oo si kastaba dhaqaale u leh oo si kasta loo oran karo stable weeyaan laazim uu qabaa dad haystay iyo barlamaan haystay iyo barlamaan iyo maxay ahayd executive maamulka hayaan iyo judiciary oo doonayaan inay to legislate from the bench waa push and pull waa iska typical phenomena in all meel kasta oo dhanba ay dawlad ka jirta midda mar kasta way iska jirtaa wadanaas aan buuq iyo khalalaasyo maartay siyaasad la isku haysto adduunkaana ka jirin malaha tiidankeena haysta maaldoyto kale Mareykanka way haystaan Donald Trump Republicans Democrats maxay liberals conservatives Christian rights maxay ahayd waxoo dhan waa la haystaa Australia baa la haystaa waxaa la isku haystaa wadanka hadda idin sheegay Korea South Korea waa kii hadda madaxweynihii hore maxkamadda la soo joojiyey oo gabadhii aabaheed uu ahaa ninkii Park Chung-hee la oran jiray oo wadankaasaytu horumarkiisii aabbo u ahaa marka waxaad u aragtaan wax kastoo idin imaato caqabad waxa sidii looga gudbi lahaa la fiiriyo oo pictureka weyn ayatiinka dambe iyo wadanka si uu meel u gaari lahaa mar kasta markii la isriixa oo la tartamo oo ay ku sigatay in maartay gabi laga hadaan laga dhaco waa in la isiraahdo warnaha wadanka naga weyna let's go back let's pull back sidii maalin dhacday oo kale oo executive-kii iyo jawaarigii intay heshiyeen maartay wixii ay si la rabay ay u sameeyeen